Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students. Aad baan idin wada salaamaya. Welcome back. Maanta waxaanu sii wada doonaa insha Allah part 2 of our job interview. Marka job interview aan maalintii hore qaadanay insha Allah. Ayaan maanta qaadan doonaa qaybtiisii labaad. Marka job interview in English. Marka aad baan idin wada salaamaya. Ku soo dhawaada dadka imika soo wada galaya imika arkay masha Allah soo wada socda. Fadlan laba arrimood baan idiga dalbanayaa inaad marka koowaad aad soo qortaan magaalada joogtaan saan isla wada socno insha Allah aanu aragno dadka wadamada ay kasoo wada galayaan iyo talabaad inaad share ka taabataan marka magaalada joogtid iyo share ka taaba. Okay, let's begin. Marka job interview qaybteeni hore waxaanu qaadanay maxaa la dhahaa introduce yourself. Marka waa introduction-kii markaad qofka soo hor fariisatid su'aalaha marka ugu horeysa lagu weydiinayo adigu aad qofkaad shakhsi ahaan aad qofka isbarisid. qaybta labaad marka waxaanu qaadan doonaa insha Allah asking or answering questions about your CV. marka adigu aad qofkaad u sheegtid personal information kaaga imika waxa ku xigi doona qaybtii CV-ga su'aal laga weydiiyo. Okay, CV-ga insha Allah. Okay, very good. Marka we have people Sudan, Timada from Bosaso, Sweden, mashallah soo wada dhawaada. So waxaan imika qaadan doonaa insha Allah marka CV-gaaga la furo ama hadduu hal page la soo hordhigo qofkii ku wareysanayay su'aaluhu CV-ga kaa weydiin doona qaababka looga jawaabi karo siiba inta hore insha Allah. Okay, so please speak English to English. I stay borha kaba soo dhawo Hassan. We have to speak English to Somali. Muhiimadda luqadda markeed hore waa fahankeeda ugu muhiimsan qofka markuu wixii fahmo casharaanta qaarkood ee advance-ka iyo kuwa kale speaking-ka qaar weeye marka kuwa live-kooda marka la soo galo English to English balse kan maanta insha Allah waxaan ku qaadan doonaa sharaxaadiisa af Soomaali si ardaydu uga faa'iideysato ee wada fahmaan ujeedadaan u leenahay insha Allah inay fahmaan jumladaha iyo qaabka loogu jawaabiyo. So the first part we want to do is su'aasha marka CV-gaaga laga wareysanayo su'aasha ugu horeysa lagu weydiinayo waxa weeyaan waxbarashadaada. Su'aasha koowaad ee CV-gaaga marka la dhex galo waxaa la rabaa in lagu weydiiyo your educational background. Okay, very good. Mashallah, we have Abdurrahman, we have Nimad Degan, we have other students, Mogadishu, Garowe, Kismayo, Buhodle, mashallah. Aad baan idin wada salaamay soo dhawaada. So su'aasha koowaad haddaan isla galno when we ask or when the person asks you, okay, the manager or the interviewer, you are the interviewee. Okay, he will ask you, where did you study, or tell me about your educational background. Educational background kaaga bal iga waran. Marka inta yara kooban waxaad soo qaadi kartaa jaamacaddii ugu dambeysay. haddaad dhowr shahaado sidatid mashallah tii ugu dambeysay ma sheegaysa. Lama baahna ilaa primary school kaaga qofka inaad u sharaxdid kole CV-gu ka arkaya laakiin haddaad soo koobtid you can say I studied marka maadadaad barataad sheegaysaa at jaamacaddaad ka dhiganaysay from sanadka laga bilaabo ilaa sanadka dhammaysta. Tusaaloo kale I studied anigu waxaan soo bartay engineering. Okay, I studied engineering at Armis University from 2010 to 2014. Okay, I studied marka halka waxaan ka rabaa idinku inaad buuxbuuxsaan insha Allah. marka aad baan idin soo wada dhaweynayaa jazakumullah khayr dadka soo wada galay oo dhan magaalada joogtaan soo qora iyo share-ka inoo taabta. So the first one we have Mogadishu again, Nairobi, Djibouti, mashallah, very good. So the dhawaada marka jumladaas aan rabaa inaad qortaan qof walba ha soo qoro I studied anigu waxaan soo bartay faculty-gaagaad qoraysa marka maadadaad soo qaadatay ama shahaadada soo qaadatay degree, masters, PhD. Okay, talk about the subject at marka jaamacadda ama goobtaad wax ka dhiganaysaad soo qoraysa marka I studied engineering at Admis University. I studied nursing at Edna Aden University. From marka xilliga laga bilaabo from 2005 to 2010 ama 2010 to 2014. adigu xilligaada garanaya marka mid walba waxaan ka rabaa si shakhsi inaad uga soo jawaabto insha Allah markaan leer eego. Okay, last anod Germany mashallah soo dhawaada meel walba la jooga marka jumlada inoo soo qora I studied intaasaad buuxinaysaan at from
inta kale. Okay, aan isla eegno marka. Let's see what they have. Okay, very good, masha Allah. weli salaami baa socda, laascanood, kalkacayo, aad baan idin wada salaamaya masha Allah. Xasan from Muqdisho, soo wada dhawaada. Very good. UK, Raqiib Farax, masha Allah. Marka jumlada soo qor insha Allah, markaad soo qortaan kuwana waan digeegi doonaa. Okay, the first one, Hassan Mohammed. I studied computer engineering at UNISO from 2013 to 2017. Okay, very good. I studied computer engineering. Okay, engineering was spelling keeda iska sax. Engineering. Marka naada waxa ku xiga laba E R I N G. Okay. The next one, Salah Sas, very good. I studied accounting. Marka at ka kasar, at ka kowad kasar. I studied accounting at Banadr University from 2006 to 2010. Very good. At ka hore naga sar. Abdi Umar, Leicester, mashallah. That's Leicester City. Magaalada anu ku soo koray weeyaan 12 sano joogay Leicester City. Aad baan ku salaamay Abdi Umar, soo dhawaada. Dadka Leicester oo dhan haday nagu jiraan way wada salaamaya. Intii garanaysa UK. Shira Mohammed Ali, very good. Okay, Hamza Abdurrahman. I studied Faculty of Law at the University of Djibouti from 2015 to 2019. Very good. Marka su'aashaas waxay ku siinaysaa jawaabta qofkaad siin lahayd interviewga ka qaadaya marka koowaad shahaadada soo qaadatay inaad sharaxi kartid insha Allah. Okay, Suleiman Anshax. I studied engineering at Qatar University from 2010 to 2018. Very good, mashallah. 8 years. That's a long time. Okay. Huthia Aqil. I studied food science and nutrition at Jigjiga University from 2012 to 2016. Very good. Abdul Barake. I started education at Hirani University from 2014 to 2018. Okay. Abdul Barake, waxa weeyaan education maaha maado. Waxaad oran kartaa you can say I started maaha education kaad oran kartaa faculty-ga laakiinse I studied markaa started baad ku qortay waxaan bilaabaa tiri marka waxaa laga rabaa I studied waxaan soo bartay. Okay, very good. Si fiican baad intaa ula qabsateen. Jumlada ku xigta markaa waxaa lagu weydiin doonaa faculty-ga imika anu intaasoo qof baan interview ka soo qaaday. Alxamdulillah, imika English College waxa uu shaqeeyaa 29 qof. 29 people work for Language College Hargeysa. weli English College baan la haystaa magaca aanu bedelay Language College baan ku soo qornay waayo luqadda Carabiga English labadaba waanu dhignay imika. Marka 29 qof intooda badan shahaadada jaamacadda way sitaan. Markaan faculty-gooda weydiiyo ama jaamacadda ka soo baxay markaan wareysto why ayaan ku xigsan jiray. Why did you choose that faculty or why did you study that maxaa la dhahaa degree? Sababtaad u dooratay engineering ama nursing ama computer science ama education ama law wixii aad baratayba sababtaad u baratay. Jawaabteeda markaa maxay noqonaysaa I always wanted to be. I always wanted to be. weligayba waxaan jeclaa inaan noqdo. Marka A and N horaan usoo qaadanay kuwaas waa articleskaas haddaanad fahamsanin arday horaan arkay kusoo qoray comments-keenii hore inaanay fahamsanin fideodii hore ku jiray facebookeena kasoo baaro insha Allah dib haddaad koo dhegaystid A&N si fiican baa lagu sharaxaya. I always wanted to be A&N. Marka for example haddaad halkaa ku qoratid nursing at Edna Aden University xagan oo kale marka way lagu weydiyo waxaad oran kartaa I always wanted to be a nurse because I enjoy halkaasi markaa because to be a antaas waxaad ku qoraysaa waxaad jecleed inaad noqotid. Marka nurse, teacher, engineer, lawyer, solicitor labada waa la isticmaalaa. Lawyer waa American, solicitor waxaa isticmaala inta badan Britishka. So waxaad jeceshaa inaad noqotid titleka shaqadaada. Because marka halkaa liidkaasi aad baan u dheereeyey because markaa faahfaahin baa laga rabaa. Interviewga markaad ku jirtid mar walba aad faahfaahintaada aad sharaxaad ka siisid sababtaad waxaan uga jawaabtay ama jawaabtan aad soo saartay aad u bixisay because aad tiraahdid aad faahfaahintan aad dhiibtid mar walba ay ka fiican tahay jawaabta kooban. Jawaabta kooban iyo jawaabta faahfaahin isku mid maaha. qofka markuu jawaabtiisa faahfaahin karo macnaheedu waxa weeyaan wixii uu sharaxi karaa luqadina si fiican buu fahamsay. Marka I always wanted to be aniga tusaale kale I always wanted to be a teacher
because my father was a teacher. weligay waxaan jeclay inaan macallin noqdo waayo aabeeba macallin buu ahaa aabeeba imika ilaa 30 sano mise 20 sano macallin ahaa ilaa imika maanta waa macallin 2019 I always wanted to be a teacher because my father Mahdi Abdisalaan aniga aabe Abdisalaan macallin buu ahaa because my father was a teacher markaas sababtaasi qofku waxay ku siinaysaa sharaxaadda qofkan shakhsiyadiisa inuu jecel yahay waxaan uu qabanaya I enjoy teaching anu aad baan u jeclay inaan ardayda wax u dhigo aan wax fahansiiyo iyaguna markaan arko inay wixii ka faa'iidaysanayaan ana dhiirigelin bay noqoto marka aabay baa marka hore dhiirigelinayaa shaqadan macallinimadaba aabay baa geliyay marka adigu English ku sharax okay let's continue so Umar Abdullahi I always wanted to be an accountant very good because taa ku dar Umaro I always wanted to be an accountant si fiican baad ugu jawaabtay weliba an accountant ka an baad raacaysa waad saxday because sababta waa maxay why okay Noor Ali I always wanted to be a doctor why because tan ara eeg jumladaas intaas way israacsantay intani waa one sentence jumlada kale xagan ay ka bilaamaysaa marka because waxay la socotaa ta hore okay Samsam I always wanted to be a nothing marka that's not possible nothing de ilaahay baa wax kaa dhigay marka inaad wax dooratid bay noqonaysaa insha Allah Huthiya Aqil I always wanted to be a nutritionist because many kids are suffering from malnutrition. MashaAllah. Very good. Saabka lagu tumay English kaas waa very good. Huthiya Aqil I always wanted to be a nutritionist because many kids are suffering from malnutrition. Perfect sentence, MashaAllah. Ardayda kale waxaan ku dhiirigelinayaa Huthiya Aqil jumladeeda akhriyaan tusaale ka qaataan. Okay. Suleiman Anshax the reason that I chose this faculty is because I want to learn petroleum engineering to help my country. MashaAllah. Suleiman Adna, very good. Thanks. You're welcome. Si fiican baad ugu jawaabtay. Okay. Hamza Abdurrahman, I always wanted to be a notary. Marka notary. Marka notayadu ujeedaan mana soma. Because I have several projects on this area. Okay. I have several projects in this area. Marka in ku dheh. Waayo mashruucaaga wuxuu ku dhex jiraa xaaladan ama areadan ama waxaad ka shaqaynaysid Abdullahi Mohammed I always wanted to be an environmentalist because I want to protect my environment forsake it for my health okay howsan yara socona let me go down a little bit for my health environment okay for the sake of my country ama for the sake of the health of my environment I always wanted to be an environmentalist inta hore waa sax because I want to protect the environment or my environment for the sake of my health okay caafimaadka daraadeed ayaan rabaa inaan deegaankayga ilaaliyo waa si wanaagsan masha Allah waan u baahannahay waddankeena aad buu ugu baahan okay deeq Maxamed sorry I always wanted to be an engineer marka engineering maaha engineer because I like engineering that's okay laakiinse faahfaahin dheeraada laga rabaa okay Abdul Nasser I always wanted to be a teacher very good anaad ila mid tahay mashallah because the like is right because why you want to be a teacher sababtaad macallin ka rabtaa inaad noqotid okay deeq Maxamed naadna because I like engineering how I jawaab laakiin faahfaahin ku filan ma imika tusaale kale waxaan ku yiri I always wanted to be a teacher because my father was a teacher aniga aabay macallin buu ahaa ilaa jaamacadda laf oole iyo maxaan dhahaa iskuulka lixlaadka June hargeysa ku yaala waxbuu ka dhigi jiray so I want to become a teacher because my father was a teacher marka qofka wax badan buu ka fahmaya okay Ibrahim Daad I always wanted to be a doctor because my father is a doctor very good that's a good example you can use that Hinda Mohammed I always wanted to start my own business because I want to become financially independent. MashaAllah, very good. I hope you get that, inshallah. Financial independence waa qodob wada aad u muhiim inshallah. Hopefully in the future, qodobada aan ka hadli doono financial independent waa wax ay dadkeen u baahan yihiin ay fahmaan. Marka very good Hind. Deeq Hussein Bara I want to be a teacher rest of my life because I need to help my people. marka my ama our labada kala dooro waa sax my people or our people labada waa dooro ka talaysan my our ismaraayaan okay mid kala dooro people na p da hore b da dambana p ka dhig okay intana waa p ba kuma jirto very good mashallah si fiican baad soo qorteen Hassan Mohammed okay Samsam I always want to be sleep because I'm lazy
I hope inshallah that you are being serious inshallah soo jeedsa ardayda wax meesha ka dhiganayaan marka ardayga daacad ha noqdo inshallah meesha ciyaar iyo kafta looma iman waqti baa inagu socda ardaydana waxay rabaan inay ka faa'iidaystaan inshallah marka comments kana macna sameeyna laga daayo Abdirasaaq Maxamed I always wanted to be a driver because I learned for driving or I learned to drive I enjoy driving I enjoy driving I enjoy logistics okay jumlada ku xigta markaan qaadana the next sentence marka this one is su'aasha markaad ka jawaabtid marka lagu weydiiyo why ayay tani ku xigaysa su'aasha saddexaad waa ta ugu adag ardayda intooda badan marka la weydiiyo what experience do you have interviewga baad ku jirtaa ardaygan iminka jaamacad buu ka soo baxay khibrad ma laha meel hore kama soo shaqeyn experience baa markiiba la weydiinaya experience ka lagu weydiinayo haddii aanan shaqo lagu siin experience-ka sayid u helisa waxyaalihi aniga beriga markaan teenager-ka ahaa dhibaatadan haysan jirtay macal kuwa UK-ga dhibaatadaas waa haystaa waa cycle experience baa lagu weydiinaya cidna shaqo kuma siinaysa bila experience like experience-ka sayid ku heli kartaa haddaanan shaqo helin okay one of the ways is to do internship okay to get experience waxaad ku shaqayn kartaa as internship waddankeena imika way soo yar fahmayaan dadka ay ka faa'iidaysan karaan inuu dhalinyar jaamacad ka soo baxday uu qaato uu tababarkaadaad u qaadanaysid halkaad guriga iska fadhiyi lahayd 6 bilood ama sanad adoo 6 bilood ama sanadka aad bulshada dhex gashid aad meel u shaqo tagtid fursado fara badan ayaa kuu furmaya guriga qofka iska jooga waxba ma arki doona laakiin qofka internship ku soo shaqeeya ama 6 bilood ama sanad haba qaataba $30 ama $50 bishii oo baskuraaciisa uu la siiyo laakiinse hadhow inshallah wax badan buu ka faa'iideeyaa yaanay noqonin bacal isla shirkada shaqo inaad ka raadisid waayo waxa laga yaabaa shirkado fara badan imika hay'ado fara badan iyo shirkado fara badan baan aragnay internshipka intay qaataan dhalinyarta intay ka faa'iidaystaan hadhowna shaqo uma siiyaan ama dee markii horeba shaqo ma jirin ama mid ehelkiisa la soo gelinaya booska waa dhibaatooyin jirta qabyaaladda waa waxyaalo badan imika welina haysta laakiin adigu mar walba waxaad ku dadaashaa inaad adigu khibradda iyo cilmiga aad meesha kala tagtid cimriga iyo khibrad cilmiga aad ka guran kartid aad ka faa'iidaysan kartid intaa aad internshipka ku jirtidna dadka baro shirkadda baro maamulka baro shirkado kala baro maamulo kala baro dadka meesha kula shaqeeya baro mar walba networkaaga uu ballaadho hadhow shaqooyin kale dad kale og yihiin baa lagu soo sheegi karaa okay marka networking waxa la dhahaa inaad u baahantahay inaad samaysid marka internshipka okay marka aad ka shaqaysid as an internship waxaad samaynaysaa I worked as an intern at okay I worked waxaan ka soo shaqeeyay as an intern intern wuxuu ka kacaya maxay I marka aan baa la isticmaalaya okay I worked as an intern waxaan ka soo shaqeeyay ama waxaan ku soo shaqeeyay internship han at marka shirkadaad sheegaysaa at language college ama hormuud ama telesom from to from marka sanadka ilaa sanadka ama bisha ilaa bisha okay I worked as an intern marka experience marka lagu weydiiyo ha oranin experience mali arday fara badan waxaan arkaa markay job interview galaan su'aasha experience mar walba ay ku dhacaan experience marka lagu weydiiyo inaad tirahdid maaha I don't have experience ama khibradu mali waxaan ama iyagu cusubtaa ama iminku ma jaamacada ka soo baxno mar walba jawaabtaada isku day inaad ama dhinaca kale ka soo martid ama si kale uga jawaabtid laakiin mar walba jawaab fiican si I worked as an intern okay let's go okay Deeq Hussein you're welcome very good aad baan idin wada salaamaya very good because I'm a mother صح waan ku arkaya Nimcad Degan very good Maxamed Abdi Wahab okay let's see comments ko dhan wayna wada dhaafay marka ilaa 100 comments baa soo qoray marka okay Maxamed I always wanted to be an IT man because the whole world depends on it okay marka an IT man maaha an IT engineer okay because the whole world depends on it inta kala صح very good Muhsin I want to start school how to get information you don't get information how to start it's best to start okay number 1 waa inaad marka hore school ka soo shaqeysaa schoolka horta siduu shaqeeyo iyo nidaamka lagu shaqeeyo horta soo baro imika tusaale kale language college hargeysa alxamdulillah waxay ka mid tahay iskuulada ugu horeeya marka loo eego collegeada 4 macallimiin oo noo shaqayn jiray ayaa imika iyaguna college online afray marka waan u bushaareynaa macallimiinta qaar ba weli imika waan la shaqeynaa ardayda qaar oo kale koorsooyinka academic writing ama koorsooyinka kale macallimiin kale aan u gudbinaa oo college kale oo la shaqeeya marka waxa weeyaan mar walba haddaad rabtid inaad wax bilowdid
meesha horta ka soo shaqayso tusaale oo kale waxaad rabtaa dukaan ama meherad inaad furtid ama inaad business cusub ama import export inaad bilowdid horta shirkadda hawshan aad rabtid inaad qabatid oo qabata ka soo shaqee sanad ama 2 sano khibrada ka soo qaado haddii kale waad ku khasaaraysaa adigu casharo badan baad ka qaadan kartaa hadaad qofkan horta usoo shaqaysid okay Mukhtar Wadani yes as I told you again the same answer start to work for a school soo shaqee waliba school yar la soo shaqee iskuulka weyn haddaad u tagtid ama shirkad weyn imika haddaad hormuud oo kale u shaqo tagtid ama telesom oo kale dee wax badan kama faa'iidaysid waayo maamulkeeda iyo shaqaalaheeda aad bay u tiro badan yihiin marka intaad maamulka ag fadhiisanaysid ama aad khibradii ka kordhisan lahayd way yartay laakiinse shirkad yaroo kooban ama meherad yaroo kooban haddaad u tagtid waxaa laga yaabaa ninka meesha makiilaha iskale inaad waqti fiican la qaadatid aad su'aalo badan weydiin kartid isaga waa inuu laftigiisaba ku tababari karo okay marka intaa mar walba ka faa'iidaysta very good صح Khalid Amir mashallah very good that's a long answer very good is to improve customers' impressions of the company my experience will be an asset to your team صح very good mashallah that's a good answer like so don't copy and paste waxa fiican same thing taasoo kale inaad adiguna saasoo kale aad ku jawaabi kartid okay let's continue marka okay I worked as an intern at Hilal Pharmacy from 2017 to 2018 صح I worked as an intern at Hilal Pharmacy very good Ibrahim Daad Abdullah Mohammed let's go up a little bit mashallah committee aad bay farbadiyay marka raali noqdo hadaan ka dul boodo aad bay tiradoodu farbadiyay marka waxa laga yaabaa inaan ka gaarsin kari waayo okay let's see qof kale aan akhrin ardayda qaar baa soo noqnoqonaya Suleiman Anshah, I worked as an intern at Abarsa Skills from 2015 to 2019. Very good. I studied master communication at University of Djibouti. Sah Mohammed Hamadi. Okay. Abdullah Mohammed, I worked as an NGO job. Okay. NGO job maha title. I worked as an intern. I worked an NGO job. Marka NGO job ka title ka sheeg. Were you reception, logistics, procurement, which officer were you? Okay. I know it's not the statement on the whiteboard, so it's very good. Okay. HR manager, very good. NGOs are one of the few places they have need for HR management and big companies. Marka inshallah si fiican uga faa'iidayso waddankan uu baahayay markaas you have to create a new industry where aan talo ku siin karo maxaa la dhahaa Abdullah Mohammed shirkadaha yaryar u fikir how to create HR solutions for low prices inshallah okay Hamza Abdurrahman I worked as an intern at notary office from May 2018 to August 2019 very good Abdullah Chair I worked as an intern at Badr from 2018 to 2019 very good I established Global Academy for Science and Technology from 2018 to now. Very good, mashallah, Mohammed Abdi Wahab. Adan Hirsi. I worked as an intern. Okay, Najmi Wayan. Okay, Adan Hirsi. I worked as an intern at Sumtel. Marka adka ka tagin Adan. At Sumtel from 2017 to 2018. Very good. Najma Mahmoud. I worked as an intern at Banadir Hospital from 2016 up to 2018. Very good, Najma. Jazakumullah khairan. Very good. MashaAllah. Si fiican bay uga soo wada jawaabeen. Si fiican baad u fahamteen. Alxamdulillah inaad ka faa'iidaysateen. Okay, bismillah. Very good, MashaAllah. Okay, the last one. Kii ugu dambeeyay markaad tiraahdid I worked as an intern or I worked as whatever position you was qaabka ama shirkadaad ka shaqaynaysay haddii uu ahaa shaqadaada internship haddaan ahayn haddii shaqo rasmi aad soo martay xagga internku baad ka bedelisay okay shaqo rasmi haddaad soo martay I worked as an a manager or as a manager as a office manager receptionist nurse engineer titlekaagu baad ku bedelisay okay ka ugu dambeeya markaa my
responsibilities marka waa very complicated word. It has 4 eyes. Okay, si fiican marka spellingkeeda iska hubsada. Kelmadda ma adka laakiinse spellingkeeda inta badan ardaydu way qaldaan. Marka my responsibilities mas'uuliyaddeeda. Marka mas'uuliyadaheega marka waa mas'uuliyadaha waa jamac waa more than one mas'uuliyad. At marka included. Okay, xaggan at marka waxa ka maqan shirkadda magaceeda ama hay'adda ama iskuulka. My responsibilities at maxaa la dhahaa Banaadir University included hebel. Okay, marka my responsibilities mas'uuliyaddeeda waxaa ka mid ahaa markaan joogay ama telesom ama daabshiil. Included waxaa ka mid ahaa ama waxaa ku jiray waxaa ka mid ahaa included maxaa la dhahaa cash operations ama filing paperwork ama answering the phone. And marka 2 mas'uuliyadood ama 3 mas'uuliyad aad soo qabatay umaad ka jawaabaysa insha Allah ma tusaalaad ka soo dhigaysa. Okay, let's continue marka. Okay, Hubbi Haji, I always wanted to be a midwifery because of I want to help my people. Very good. Marka midwifery waxa weeyaan waa nounka magaceeda laakiinse you want to become a midwife. Okay, ry-da markaa ka saar Hubbi Haji. Very good. Carabiga we have different timetable inshallah isagana imika waan kusoo biirinaa marka khamiista beri maanta soo 4 ma inshallah beri khamiista subaxnimadka ayuu soo gali doonaa carabiga. Marka diirta carabi 10 qaadato kuwa aroorta soo galaya beri khamiista subaxnimadka ayuu soo galaya inshallah. Haddii aad maanta 4 daawanaysid oo 8 bisha khamiista markaa 9 ayuu soo galaya iyo sabtida inshallah wuu soo galaya 3 bisha. Marka my responsibilities at okay, let's go marka. Let's see waxaad soo qorteen. Okay, my responsibilities at noo dhammaystira marka at shirkadda magaceeda ama hay'adda magaceeda ama iskuulka magaciisa ama dowladda xafiiskeeda ayuunbaad sheegaysaa. Included waxaa ka mid ahaa 2 ama 3 baad qori karta intaad jecesha. Okay, marka my responsibilities at may haddee Hussein marka family maaha. That's your family laakiinse imika waxaa laga hadlayaa you're in a job interview. shaqaad ku jirtaa interviewgeedii marka waa inaad ka jawaabtaa wixii aad soo martay. Sidiiba khaasatan internshipka halkaad ka soo shaqaynaysay maxaad qaban jirtay meeshaad ka soo shaqaysay ama internshipkaad ka heed. Okay, Xootay Aqal, I worked as an tuition from at ARC from 2016 to 2019. My responsibilities at ARC included feeding, counseling and reporting. Very good, mashallah. Xootay Aqal, si fiican baad uga soo jawaabtay. Okay, marka n I know and baad u jeedaa laakiin si fiican u qor a and d ka dhig. Okay, my responsibilities included managing the reception and answering phone calls. Marka nimca degan jumlada dhamaystir insha Allah si fiican. My responsibilities at marka reception maaha shirkadda ama hay'adda ama iskuulkaad u shaqaynaysaad qoraysa. Hubbi Haji, I always wanted to be a midwife because I want to help my people. After ka saar marka inta midwife waad saxday aftana inooga saar Hubbi Haji because I want to help my people. After marka ayda ka horeysa because I want to help. It's very good. I work as a broker business from Dubai. صح, I worked as a broker marka dilaal baad hayd from Dubai. Ilaahay ku barakeeyo dhammaantiinba shaqooyinkaad soo wada qabsateen. My responsibilities at Department of Image. Okay, Najma Mahmoud. My responsibilities at marka dhakhtarkaad sheegaysa at Banaadir Hospital ama Hargeysa Hospital, Gargaar Hospital included emergency department ama managing the emergency department and interclass soo saaras. Okay, Hassan Mohammed, my responsibilities at Mama's supermarket included cash manager and supplier refund. Very good, mashallah. Marka supply waa y laakiinse markay noqoto suppliers y dood ka saaraysa. Okay, suppliers marka waxaad ka dhigaysaa ie. Okay, y da waxaad ka dhigaysaa I. y da waxaa la isticmaalaa marka iyada ugu dambeyso inta badan. Okay, Ibrahim Daad, my responsibilities at Hilal Pharmacy included manager and doctor. Marka okay, you're a manager. Marka reception manager waxa laga yaabaa xaggii hore farmasiga inaad taagnayd
dadka soo galay oo dhan maxaa la dhahaa counterka inaad maamuleysay cash management and doctor. Okay, very good. ka ku xiga marka Suleiman Anshax, my responsibilities at National Bank in USA included to save equipments of the bank and respect the buyers. Very good, mashallah. Si fiican baad ugu soo jawaabtay. Deeq Mohammed, my responsibilities at Hormud included cash manager. Marka cash manager and si faahfaah. Waxaa laga yaabaa dhowr mas-uuliyad inay ku saarnaayeen inaad lacagta maamuli jirtid, dadkaad customer serviceka, dadka soo dhaweynteeda, ama reportingka. Haddii aad cashka haysay waxaa laga yaabaa habeen walba inaad report yar ama warbixin yaroo kooban inaad gudbin jirtay. waxaas oo dhan faahfaah soo qofkan markuu kureysanayo u fahmo waxyaalahan aad soo qabatay aad khibrad u leedahay. Okay, my responsibilities at Sotaj Group included controller and supervisor. Marka included controller and supervisor. Marka controller marka maxaad maamuli jirtay? Controlling what? Marka if you're controller, marka included being the controller ama office controller. intaas sharaxaad faahfaahin yar qofka ka sii. Okay, Mohammed Abdi Wahab, my responsibilities at Global, okay, wayna dhaafeen kuwaasi, at Global Academy included as manager and teaching. Okay, as marka asta ka saar included management and teaching. Marka management deh. Okay, very good. Sudan Tim Adde, my responsibilities at manager Faseh Phones, sales manager. Okay, marka my responsibilities at Faseh Phones ayad qoraysaa. Marka Faseh Phones waxaan kula jecel inaad tahay meherada magaceeda. marka taasaad soo horeysiinaysaa. Okay, Suleiman, Sudan Tim Addan u jeeda. Mohammed Bashir, my responsibilities is to check all forms in my NGOs. Okay, marka all forms in my NGOs. Marka my NGOs marka adigu NGO-da maad iska leedahay ama within the NGOs ama all forms of the NGOs. Marka hay'adaha oo dhan inaad foomkooda check garaysid. Okay, that's my NGOs waxa weyn adiga hay'adaha. marka adigu haddaad hay'adaha iska leedahay maasha Allah, haddaanad iska lahayna the ayaad ku bedelaysaa. Okay, ka ugu dambeeya aanu qaadana marka Abdiqaadir Ali Jaamac, my responsibilities at World Vision included 1 data collection and data analysis, 2 data management and data interpretation. Masha Allah, Abdiqaadir Ali Jaamac, very good. Si fiican marka masha Allah si fiican baad u fahamteen. ardayda inta kale soo gashay raali noqda, waxaa laga yaabaa inay comments aad u fara badan 130 comment baa inoo soo galay. marka intaan ka booday naga raali noqda insha Allah waan ku dadaalnaa inaan mar walba wixii aan ka jawaabi karo ka jawaabno. marka waxaan jeclahay intaan fahamteen. This is part 2 of the job interview inshallah. marka part 3 iyo part 4 na soo diyaarin doona marka asbuuca soo socdaan u qaadanana kuwana. marka inshallah kii hore ku dhaafay uu ku jira Facebooka. part 1 ka dib aad u daawan kartaa. marka part 3 gana markuu soo galan isagana dib aad u daawan kartaa. marka mar walba page-ka ku xirnow, like saar, share-kana inoo taabta si ardayda kale uga faa'iideysato. fiidiyoyadana markaanu ka baxno live-ka dib aad u daawan kartaa inshallah. jazakumullah khairan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.